Belarus dad badan oo Soomaaliya yaqaana laakiin ilmo baa ambar maanta inay saxaafadda maqashaan rabaa ma sanid ma sha Allah ما شاء الله ما تسندين waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed u marinaya hortiina ilmo baa ambaro Belarus waa nal ku yaqaanaa oo waa beela tumal yaxar madhiwaan musadariyo iyo ibraha ilmo baa ambarana walaakin waa ilmo ati ilmeedo dhinacno ma kala baxaan marka dadka aan ku matalno siyaasadda xildhibaanada waxaan golaha shacabka baarlamaanka ku leenahay 7 xildhibaan wiilasha xildhibaanada iyo anigoo gabadha ama hooyo ama islaam dadkayga markay soo gaarsiiyeen annaga waqtigii hore ka shaqeynaynay samafal ilaahay nagu ilhaameeyay waalidiinta iyo ardayda fadhiya odayaasha iyo hooyooyinka waxay ahayd tacab dheer jid dheer waan u samaysnayn inaan dadkeenna u samafalno Soomaalina u samafalno ilaahay waa nagu guuleeyay maanta meesha ay joogto jamciyadda Suheeda waa la og yahay iyo dadka ka aflaxay cid kastoo gacan nagu siisay ajri xasanaad Allah ka siiyo intaa waxaa dheer anigu waan ku faanaa yaxar ahaan waa u faanaa labaatan sano siyaasadda ku jira shantii baarlamaan oo dalka ugu dambeysay 2000 laga soo bilaabo ilaa 2020ka 21 Oktoobar maalin taariikhi ah ayay noo tahay 2020ka 20 sano oo siyaasadda ku jirana waan sheegaa haddana waan sheegayaa waa ku celinayaa ilaahay uu ka marqaati noqo maalinta wiil iyo gabar yaxar ah siyaasad u soo tartamaan aniga ana u firaaqeynaa meesha oo soo sadeexay anigii hadda saysay intii dhimatay Allah u naxariisto saas daraadeed waxaan ku faraxsanahay in wiilasha beelaha Ruutis ayagoo geeya ayagoo mudan ayagoo leh karti aqoon xukuumad marka laga hadlana aysan kabta iga joogsan Soomaali ma qabto Soomaali lagama helo dadka labada isugu daran dadka labada isugu dhawaa isugu daran dadka labada isugu dhawaa madaxda qaranka ugu kala tagta hebel iga qabo Soomaali kale iga qabo ma dhahan iyo dalka sidaana iyo heblaaye iga reeb xildhibaanka labaad ee beesha yaxar waa saysay golaha shacabka waa laga yaqaanaa xitaa hadduu aad la Khadiija Triyaal ogaada markuu aad la Khadiija Trimicni xitaa in la qaybiyaa la rabaa kuwa kale oo kabta iskaga jooga waxay rabaan inay dhahaan inayna baraan waxa ay yaqaanaan hadduu meel istaaga Khadiija istaagtiri hadduu aamuso Khadiija aamus tiri
hadduu gacanta taagto Khadiija xagga u taagtiri laba xildhibaan oo isku jifo hoosaada oo Soomaali is doonta 20 sano siyaasadda aan ku jirnay anagu ma arag ka soo tag ilmo bax cambaro xildhibaanadeena xildhibaan Qaasim xildhibaan Hayle way wada joogaan saysay iguma dhinac ordin ayagana iguma dhinac ordin iyo hadda inta wiilasha kale naga maqan waxaas dheer hooyooyinka iyo aabayaasha iyo ardayda meeshaan joogto waxaan filayaa inta aan magacaabanahay dad wasiiradooda u dabaaldega lama arag oo aan annaga ahaynaan fila dadkayda markasta waxaan dhahaa inaan wax lagu faano ilaahayna siiyey inaan nahay dad lagu faano nasiib badanaa ninkii noocyadan ka baxo nasiib badanaa ninkii dadkan ka dhashay nasiib badanaa dadkay ehel u yihiin nasiib badanaa kuwa dhiigan bah cambaro marka la sheego bururaaya nasiib badanaa dadkan haysan waxa loo dabaaldegayo bawrka sida hadda ku qoran arkay taageerida xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xuseen Rooble ay ku mas'uuliyadda Khadiija aniga magaciina magaca xildhibaanada ku hadlaayo ra'iisul wasaaraha golihiisa fursadda inoo siiyey waxaan leeyahay waa mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagana waa mahadsan yahay runtii waqtigii hadda 4 sano oo aan wada joognay ayaan wada shaqaynteennii dhaweyd madaxweynaha jamhuuriyadda ku baranay ilaahay baana Soomaali u soo diray annagana waxaan u xirnay duub la yiraahdo kama degi waxaan rabnaa markaa dadkayga tolkay eelkay beelaa ruutis ku talagala ducadiinuna ha ahaato duubkiisa kama degi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa mahadsantihiin wax kaloo idin dhaho male جزاكم الله خير انت يسوعدي انت يتمد انت الى كلنتي انت رادينيسي وادوقتين وقت كستا انا فرصه يليسان oo ay xildhibaanadu joogan oo aan way karin dadkayga xildhibaan Yuusuf xildhibaan Sayd xildhibaan Qaasim wixii walaha sidii horeyba aanu qaban jiraan oo qabana tan Soomaali guud ahaanna ilaahay han lagu asturo waxaan rajaynayaa gaashaankiina la ima keeno insha Allah qofkii joogana Allah idinka ardaydan waxaan leeyahay soo aflaxa ilaahay nuurka idin saaro waalidiintana waxaan leeyahay ilaahay awlaadda idin la koriyo ilaahay ha idin barakeeyo agoomaana madaxaada loogu salaax insha Allah ina Cabdullaahi Saluulow hadii ilaahay yiraa oo nafta qabo dugsiga sare oo dhameystay jaamacadiisa ilaahay ka sukow ana ka faal qaaday insha Allah